first Somali speaking white boy. Yeah. From where? Richie, Ontario, Canada. His name is Yassine. Hala. half Canadian, half Caribbean. In cadaan oo arkayso oo Soomaaliga kaaga badanaya adiga. Oh my goodness. ku soo baraya Soomaaliga. Waa caadi waan ku wallahi markan waxaan ka arkaynaa meeshan inay tahay inaa luqadeena lagu dhaganaado luqadeena hooyo. Soomaa Yaasiino aad baad Ilaahay baa runtii jecel Soomaaligayga ayaa ka fiican Ingiriisiga hadaan ku dhaqo. Wow, wallahi that's unbelievable. Ma aha Soomaaligana ku hadlo. walaal waxaad u sheegtaa dadka dadweynaha shacabka Soomaaliyeed ee adduunka meel walba wada fadhiya waxaad u sheegtaa like background kaaga exactly quickly ba ku tiri markii Soomaali ma ku soo dhex koray Soomaalida dhaqankooda iyo waxooga dhan ma soo bartay moogtay Soomaalida waxaan ka bartay waxyaabo badan oo aan cadaan ka arki waayay moogtay xaggan Carling awoogay baa degan kii hooyaday dhalay ya isaga laba cisho guriga markii uu hayay wuu soo laagay moogtay cadaan ma fahmayo qiimaha family Soomaalidu taqaanay moogtay incredible Soomaalida aduunka meel kasta ku nool ee fiidiyoga daawalaya baan sheegaya imika luqadda hay ilaawina ayidin cunay wallahi kana jooga inan kaliya oo Soomaali ku hadasho ma jirto inna lillahi wa inna ilayhi dadkii Soomaalida waxay ku leedahay yow iskuud waxa iska bax wariya maxay saadhay waa mahadsan tahay Ilyas ilaahayna ha kula garab qabto all your endeavors u sheeg please intaanan sii bixin background kaaga again half Canadian half Caribbean Somalian ku sheego half cadaan half madow waa Canadian iyo Caribbean marka guys waxba idinkuma aha inaad numberkayga idin dhiibaya dumarkii soo garaaca emailka ka fiican numberkii emailka waa israacinaya idinku waxa doonaysaa idinka jirtaa numberku waxa weeyaan 613 263 9092 email kana waxa weeyaan Ilyas or ILYAZ05@hotmail.com. There you go. Marka all the females oo rabaan inay guur doon yihiin iska soo waca inamadana dhibaatada iska dhaafa. Salaamo. Ay, ma city guys. Ciao.